أي أريو سهل دونت waan kartay laakiin marka la isku soo xooriyay museum waxa weeye waa ururinta ama taariikhda ama dhaqanka marka dad leeyihiin bal waxaad ka warantaa waa maxay ujeedooyinka loo aasaaso museumka ujeedooyinka horta ugu waaweyn waxa weeyaan gol hadii laga hadlayo taariikhda waxa weeye dalka sheekadiisii oo dhan horta waa in meesha ku soo ururta imika kadada soo qaadada taariikhda Soomaaliland horta waxaad ka hadlaysaa waa dhul iyo dad iyo wixii Ilaahay dhir ku abuuray xayawaan intaas oo dhan oo meel mid walba gaartiisa loo eegay waxay sawir ka bixin kartaa dalka hadaan soo qaatay Soomaaliland macnihiisu wuxuu ahaa dhul ahaan baaxadiis maxay tahay maxaa ka baxa maxaa ku dhex jira xayawaan ku dhex nool maxay yihiin ugaadha ku dhex nool maxay yihiin dadka Soomaaliland ku dhex nool maxay xireen jireen dareys maxay jireen maxay maacuun lahaayeen wax ku cuni jireen maxay markay guurayaan iyo hadee intaan daarahan iyo waxaan la sameyn waciyadii iyo agabka ay isticmaali jireen muxuu yahay waxa ay taariikh ahaan ay soo mareen intay ka soo gudbeen waxa soo dhan oo la keydiyay ayaa dadka waxay sharax badan ka bixinaysa dalkaasi hidiis iyo dhaqankiisu wuxuu yahay ku dabada kaaga iman karaan fikrad kaaga qaadan karaan halka ka soo jeedo kuwa ay iskuulada ku jira ama dhalinyarada imika jiilkan oo kala ku noolna ay garan karaan inay soo karo wariyaan horta maxaan ahay Soomaaliland ma sheeganaya xageen ka imi maxaan jiray awowgii aan ku ahaa dalkan muxuu yahay maaha uu dul socod dalkiisa laakiin museum intaas horta soo ururiya oo sharxa uu ka bixiya muxuu ahaayay interpret waxa lagu yiraahdo muxuu ahaayay sharax ballaaran oo ka horta faa'iidooyinka ugu waaweyn hadda soo ururiyo waan kartay Soomaaliland iyo waxa uu faa'iido u leeyahay aasaaska museumka oo soo noqon doona laakiin xarunta Saryaan museum ba dhawaan aasaasteen bal waxaad ka warantaa xaruntaas asaaskeeda iyo waxyaabihii ku kalifay waa fiican arag Saryaan horta Saryaan hadaan ku sharxo waxa weeye biciidka waa magacaan uu xulay in magac loo bixiyo museumka Saryaan oo magac waxa lagu dooranay biciidku waxa gaar u leeyahay waxyaabo badan oo gaar u leeyahay بريجو هرد الكين واحد الإسماعيلي جحليا جودرك ما أنت ورا وتشجع جودركو وحنا نقول واحد بالله ما بالله مريض مركاين أين واحد جاري لنا بعيدك وحوي وحيابها جارك اللي يهتو وحوي وحيوان أتكيس بدن وأنت بدنا جونيس كتاجا ما لها كلا حيوان كيسو إيجي في إيجي هرريس إيجي أو في تجنوي مركا أنا إيجي طبيعة عديسة Saryaan oo Saryaan horta waxa weeye waa ninka muxuu ahaa biciidka weey maaha ayaan u qaatay oo ka turjubi karto Soomaaliland meel walba eegaysa hareeraheeda eegaysa soo jeeday feejigan in sida biciidkaas oo kala tahay taasi waa magacii hadaan kugu soo noqdo xaruntan asaaskeedii runtii muddo ay soo socotay fikirkan in badan buu igu jiray oo aan arkayay inaan dalkeenu ay ka maqan tahay meelihii wax lagu kaydin lahaa oo barigii hore way lahaan jiray museum dhaqameed laakiin dagaaladii u raacay لكن ده أنتوا كاسي وشرحي وحكى بدن بعد عيا دير دم برمتوه وحي بالإسكوي مقرنس مقالوا دم باباي تدم بعد هيك يكون نقضي مركا وروحي هالكائل لقى أركلها لو داول هذا دوار ثلاث صغير هاي مكرره هنا صورين إيه وحي كتر شوية صور ولا أو ما شاك صوروا هرتب معنا جارو أي صميني مركا وحي يوكل في إن مركا أن الوقت سيو ما لقليو in muxuu ahaayay xarun ay Soomaaliland yeelato Hargeysa iyo meelaha kale hadii mustaqbalka laga furi karo si aynu inana wax uga barano kuna soo urursano anuma wada hayo wixii oo dhan laakiin in la isku soo ururiyo la taageero la taabiyo oo la isku gacanta la isqabsado si aynu u fahamno sharaxa iyo ujeedada ay museumku leeyahay waan kartay marka laakiin laga tago baahida ay Soomaaliland u qabto in la asaaso xarun lagu kaydiyo taariikhda iyo dhaqanka wadankan iyo maraaxilkii wadankan uu soo maray maxaa kale oo soo karaysaa way ku dhalisan xaruntan asaasta run ahaantii ordo qofku isagay ku xiran tahay ana fikirkayga uu ahaa anu dalal badan ma anfaan soo maray mar walba waxaan tagaa meesha museumka magafo dalka stoon tago way saxan u fahmo dalkaasi wuxuu dhaqankiisa yahay taariikhdiisu tahay ujeedadiisu tahay wax aniga iga soo go'ay Saciid ahaan oo jecel taariikh urursiga ilmahan aan ku bartay taariikhda iyo muxuu ahaa dhaqanka iyo siyaasadda aan ku bartay dawladahaasi ama jaamacadahan kaga soo baxay ayaa horta hay'ad waxa weeye mishiinka weyn aniga dabada iga riixay ama aqligayga salaaxay si aan mar uu sameeyo marka taas wax aniga iga soo go'ay buu ahaa faa'iidooyinka Soomaaliland qofku isagu waxbuu keeni karaa waxna waan jeedooyinkiina wata imkaan ku sharxay laakiin waxay ku xiran tahay dadku waxay kala dhex bixi karaan iyagu
dadka imanaya soo booqanaya fikirkay ka qaadan karaan iyadu taasi waxay u taalaa dadka daawadayaasha. waan gartay ilaa haatan maxay idin hirgalay xarunta Saryaan Museum ay ilaa haatan qabatay? horta dee waad aragtaa kuwaad soo martay bildhinadoo dhan inta bildhigna Saryaan Museum ka yahay hadday tahay hoolasha kaydka muxuu ahaayeen aasaarta iyo kaydka dhaqanka iyo hidaha labada hool oo anaga dhisnay xafiiskeedina waa anaga fadhina dhinaca kale haddaan sii eegi lahayd waxaa ku jira tiyaatar ilaa 200 qof qaada oo aan ugu talagalay in daraamada amba dadku ay afkaar isku dhaafsadaan haday doonayaan debate galaan haday doonayaan inay masraxiyad sameeyaan intaas oo dhan iyo hawlaheeda iyo halkaas dhinaca ka soo jeedana buildingkaasna waa cafeteria aan ugu talagalay dadku inay isku yimaadaan ku sheekaystaan oo hadii gift shop ama muxuu ahaay waxyaabaha hadiyadaha la isku weydaarsado intaas oo dhan horta maalgelinta iska leh. laakiin waxaan aad iyo aad u mahadnaqayaa dawladda uu hogaaminayo Axmed Maxamed Silaanye oo gargaar weyn runtii halka ka bixiyay waayo dhulkan aynu ku fadhinay hadii aanu isagu ogolaanshihiisa bixin soo sharciga dawliga raacaya imay suurta gasheen in halkan museum ka taago. run ahaantii waxaan kaloo aad doonayaa ugu mahadnaqo muxuu ahaay wasiirka maaliyadda Samson Cabdi oo iyadu ila garab taagneyd dadaal inkastoo muxuu ahaay ay aqoon hore u lahayd waxay arrinkan museumyada iyana waxaan doonayaa runtii halkan ugu soomo waxa soo raaca cadaani oo aad isu naqaanay Mareykanna isku arki jiray oo imika aan ku faraxsan noqdo wasiirka muxuu ahaay warfaafinta oo fikirka qudhiisu in badan ila taabay inta waxaan doonayaa message-ka inaan ka diro halkan oo ugu mahad celiyo. waan ku sheegay maalgelinteeda ana laha waxa kale oo inta raaca waxyaabaha soo aragteen la soo ururinayo wax wal oo la keenaaba kuma bilaash waxyaabo yar ba bilaash ku yimi wax waliba waxa ku yimaadeen muxuu ahaay iyadoo sawirka la sharxayo amba iyadoo frame la gelinayo amba iyadoo aqal Soomaali meel laga soo rarayo wax waliba waxay ku kaceen muxuu ahaay kulay kharash iyo dhaqaale waan gartay laakiin waxyaabo ugu badan ee intii aan xarunta ku sugan aragno waxa kamid ah sawirro tiro badan oo dhamaantood ay ku dugan tahay taariikhdii dheeraadii waddankani lahaa in sawiradaas sidee ku suurta gashay in sawirro tiro inta leeg aad kaydisaan oo waliba soo bandhigtaan xaruntaada keentaan? sawirrada dhowr wax bay u kala baxaan dhowr halkan soo aan ku helay muxuu ahaay manbac ama source-ka qaarna lagu tabarucay oo rag photographers ama dadka sawir qaada ay noo keeneen ay dhahayn warniyo bahaladaas aanu waan ku keenay adu frame ku gasho qaar waxa weeye qaar aanu rag muxuu ahaay kuwa muxuu ahaay rabbi xukmayo ku jira ajaladaha ay aanu meelaha iyagu daatan aanu ka soo ururin waliba de qaar rag soo iibsanayba waxa isugu jiraan wax tabaruca iyo wax muxuu ahaay aanu ka maalgelinay si aan u ururno walina faray kama qodno. inta badan dadka laakiin waxaan ku guwaabiyaa war bal idinku hadii qof waduu wax keeno waxa jira policy aan ururinta waxyaabaha qaaliga ah qofka magaciisa aanu qoraa meel baan ku kaydinaa taariikhda aan ku daraa marka dad badan oo wax noo keenay waa jiraan laakiin aanu markaan eego museumka halkan ugu talagalay inuu gaaro waxaan u maleeyaa 40% inuu marayo. waan gartay marka sawirada laga tago maxaa kale wax taariikh ama dhaqan ku kaydsan xarunta? waadigii dhexmarayay imika maanta xarunta u maleelmaayay inaad